السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaa ka hadlaya Faysal Yuusuf Ismaaciil Nuur. waxaan fariin u dirayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto marka ugu horeysa iyo ummadda muslimiinta meel kasta ay dunida dacaladeeda ka joogto. waxaan si gaar ah ula hadlayaa oo ugu dirayaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhammaan dunida dacaladeeda. maanta waxaa ka dhacday wadanka Denmark arrin aad u xanuun badan waliba gaar ahaan magaalada Odense la yiraahdo magaalada saddexaad waxaa dhacday hooyo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Rooda Cawil Daahir ayaa waxa laga qaatay 6 caruur ah oo dawladda Denmark ka qaadatay sharci darro iyo bareed ay u bareeday baanay kaga qaateen caruur doonis inay iyo nacayb caruurta ka qaataan iyadana wadanka ka saaraan waxa lagu xukumay in wadanka laga saaro caruurtana laga qaato waxa dhacday hooyadaas been abuur baa lagu sameeyay waxa lagu been abuurtay inay caruurta dishay oo ay wax ku dhifatay dhaqaatiir soo cadeysayna koow ma jirto iskuul soo cadeeyayna ma jiro labadaas soo cadeeya ama iskuul ama dhaqaatiir baa soo cadeysa qofka marka la doonayo in lagu soo cadeeyo inuu dilmo ama ay wax ka dhaceen kamay dhicin arrintaas walaa dhaqaatiir baan soo cadeynin walaa iskuul baan soo cadeynin midna may soo cadeynin si bareera oo xumaana oo been abuura ayaa Rooda looga qaatay caruurtii 6 caruura oo 3 kamid ay aad u yaryar yihiin ayaa laga qaatay waxaana lagu xukumay in wadanka laga saaro laga mastaafuriyo wax kabadii koobaad baa xukuntay tii labaadna way xukuntay wadanka Denmark kamay dhicin inta hooyo laga qaato caruur haddana oo waliba disable oo way lug laadahay lugba Rooda way lug laadahay oo dad waa disable waxa loo qaatay looga dhigay in la mastaafuriyo caruurteedana loo qaybiyo dad qoysas dheenasha loo qaybiyo oo ay halka ku korsadaan waxa la doonayaa in laga dajiyo wadankii Soomaaliya la oran jiray ama Muqdisho oo Soomaaliya ama Somaliland labada kolba kii u fududaaday inay geeyaan bay doonayaan Rooda waxaan leeyahay insha Allah bidmillaahi kariim waxa la doonayaa in laga hawl galo oo cid kasta oo Soomaaliyeed ay ka hawl gasho oo arrinta ay ku baajiyaan may dhicin inta qof caruurtiisi la qaato in waliba wadanka laga saaro caruurta waa kaligeedna waa hooyo kaligeeda caruurteedii caruurtan ma jooga aabahood halkan qaar waa agoon oo aabahood u dhintay kuwa waaweyn kuwa yaryarna waxa weeyaan aabayaashood ma joogaan dabada qoysas gaalaaba loo qaybiyay oo loo geeyay oo imika haysta hooyadana waxa la doonayaa in la saaro Rooda oo la mastaafuriyo wadanka laga saaro marka fariintan halka ka diraya waxay tahay marka ugu horeysa maamulada ayaan u dirayaa waxaan leeyahay war arrintaas murugada leh ee soo korodhay ee bilowga ah kulli qaar kalena way ku xigi doonaane ha laga hawl galo oo bal at least maamuladu marka airportadooda laga dajiyo Rooda halkan aan ku soo dhigi doonaa sawirkeedii iyadoo askartii wada oo hareeraha kaga jirta Deenishka ayada cadayd waxa la doonayaa in la yiraahdo war caruurteedii soo raaciya intaas oo kaliya waa ku filan dawladda intaas oo kaliya hadii loo yiraahdo Rooda caruurteedii meeday iyo annaga la hadhnay caruurteedii annaga la hadhnay de siday ku suurtagal ku tahay intaas oo kaliya doonaysa cid u tiraahdo oo xagga Soomaalinimada iyo xagga aakhirada wax kaga helaysa marka fariintan halkan ka diraya waxay tahay arrinta laga hawl galo maamul kasta oo arrintaas lala soo gudboonaysiiya ha ka hawl galo oo ha ka fiirsada arrinta hooyada Soomaaliyeed ee dhibaatada inta leeg ku dhacday ee caruurteedii ay dhashay ee caloosha ku qaaday ee ay iyadu dhashay ee dihatay iyadoo waliba disable inta qoysas gaala loo qaybiyay haddana la yiri waa lagu mustaafirinaya wadanka waa laga saaraya arrintaasaan doonayaa maanta inay la wadaagtaan waa maalin isniina bishii 8 ay tahay 9 waxaan leeyahay arrintaasi arrin aad u xanuun badan oo aan hore dhan marag uga dhicin waana maxkamadii labaad ee darajada labaad baa xukuntay bilaa markhaati bilaa cadayn bilaa waxba ayaa lagu xukumay walaa iskuul baan imanin walaa xanaano caruur baan iman walaa dhaqaatiir baan iman maxkamadaasi saasay tii labaad ku dhacday waa sharci darradii ugu xumayd ee Denmark ka dhacda waliba magaalada degan Odense
weli may dhicin hooyo Soomaaliyeed carruurteedii la qaatay in la yiraahdo wadankana waa laga saaray adigoo Soomaaliya laga tuuray yani waa arrin aad u xanuun badan waa arrin aad u xanuun badan 200 oo qof oo Soomaaliyeed oo gobol kasta ka yimi baa maanta joogay wallahi billahi 200 oo qof oo gobol kasta ka yimi Soomaaliya qabyaaladii waxa maanta arrintu way ka tagtay ayaa joogay meesha marka waxaan leeyahay arrinta xanuunka badan leh laga hawl galo oo cid kasta oo lala soo hadlay la gudboonaato iyo airport kasta oo lagu qabtaba arrinta laga hawl galo laga joojiyo oo hal la yiraahdo at least wadankeedii weeye waa keeni kartaan waa wadankeedii waana keeni kartaan muqdisho ka dajin kartaan hargeysa ka dajin kartaan boosaaso ka dajin kartaan garowe ka dajin kartaan waxa la doonayaa caruurteedina soo raacisaan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.